meeshaas diin ma taalo wax yaallo anfaca ma lahan beenay sheegeen dadkay marya hawaabiyeen wax beenay u akhriyeen diintii ka been sheegeen dadkaas marka waxaan leenahay dadka ka dambeeyo wiilashan inay yimaadaan ay soo qaadaan jidkay soo qaadeen oo ay ka faa'iidaystaan cadow cafiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo u fidiyey dhalinyarada la qalday cafiska uu fidiyey inay ka faa'iidaystaan haddaysan ka faa'iidaysan waxaa dhacayso maalin inay gacanta soo galaan ciidamada saaka halkan ku soo dhaweynay oo maaragtay tiradan badan oo qawaariijta ah oo soo dhiibiyaasha ah oo ka soo laabtay dhabihii dadka maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed lagu qalday waxaa weeye dhalinyarada kaleeto oo ay ka soo tageen oo meelihii ay ka soo tageen joogaan ayakana waxaa rajaynaynaa sida adinku isku soo dhiibteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gacanta maaragtay ciidanka deegaanka isku soo dhiibteen in ayakuna wadada soo maraan wixii ka haro maaragtay meesha soo dhiib waayo ka faa'iideysan way fursadaas ay heleen oo aad ka faa'iideysateen ayadana waa xayto geesiyaasha xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maaragtay gacantooda ku bixi doonaan haddii rabeedno xilligii la qalday dadka Soomaaliyeed la dhibaateenayay qawaariijta ay dhibaateenaysay waa laga gudbay marka waqtigaasna waa loo gudbay waxaan rajaynaynaa marka ayakuna inay soo dhiibaan intaan oo tira ah waxay iska soo dhiibtay maaragtay deegaanka Xardheere macnaheedu degmada Xardheere deegaanada hoos tago oo ilaa Jawle iyo maaragtay aagaas oo dhan bay iska soo dhiibeen iyo maaragtay Camaaro iska soo dhiibeen iska yimaadeen marka waxa weeye fikirkii iyo qaladkii ay ku socdeen bay hadda fahmeen fursadaas inay ka faa'iideysteen cafiskii uu madaxweynaha Soomaaliya u fidiyay maaragtay waa ka faa'iideysteen kuwii hore soo dhiibay iyo maaragtay sida loola tacaamulay oo wanaagsaneed ayakana loola tacaamulaya qof din ku been abuurta qof ka xun ma jiro marka dad been ku been abuurta ayaa la hogasheen waxaan dareemayaa daayaro inay jirtay aqoon aan dawladda u haysanin iyo fikrad aan dawladda ka haysanin marka maadaama masadka dadka ugu garaadka oo aan noqotay waa faa'iideysateen waan rajaynayaa dalkan inaad u faa'iideyn doontaan kuna dadaala kuwa kaleetana waa sidaan hadalka masadka bilinaa waxay takamara ma kartaan isbiirsiga culimada Soomaaliyeed iyo dawladda iyo ciidamada dawladnimada Soomaaliya u soo jeestay inay qawaariinta la sifeeyo uma soo biiri kartaan waxaan aragtay idin ah meeshii aad joogteen 2009kii Muqdisho oo aan laba degmo dawladda ka joogtay iyo maanta oo gobolada aad tirsi ku joogtaan taas daliil ah in aan dawladda ka hor imaatay